taliye Mustafa Siciid Toora oo ahaa taliyihii ciidamadii ugu dambeeyay ee ka goostay Somaliland kuna wareegay Puntland ee fariisinkoodu yahay magaalada Ceelbo ayaa maanta ciidankiisu dhoolotus military waxay ku soo bandhigeen xerada ay degan yihiin intaasi ka gadaal taliye Mustafa Toora ayaa si kulul wuxuu ugu jawaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland Cabdirasaaq Cali Ayaan oo shalay la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta wasiir Cabdirasaaq Cali Ayaan ayaa ciidanka Somaliland ka wareegay ee Puntland ka mid noqday waxa uu ku sheegay kuwa howlgaba oo aan Somaliland waxba ugu qumanayn hase yeeshee ay halkeeda ku masruufi jireen waa xeradii laga kaxayay wasiirka cadaaladda oo aanu geynay baran xeradaas uu yimi xerada ciidankii jooga kaxayay ana taliye hogaaminay ahaa baran baan geeyay wasiirkii hadda wuxuu ciidan ma jiro waa beeshan ma ciidankii Soomaaliya raga baa jooga waa ururka labaad iyo hurintii taliska degan waa ciidankii ka soo goostay maamulka jeegaanta kuna biiray ciidanka Puntland saraakiishii oo dhinac taagan waxa jooga saraakiishii guutada xafiiskii howlgelintii saraakiil buula oo hurinta taliska kamid ah ururkuna ana taliyo ururka ahaa haddana anayba taliyihii goobta ah oo ciidanka waa xerada inta la eego dhista kale technically ba taala isla wuxuu yiri xeelad jirta maaha wasiirka cadaaladda Soomaaliland wuxuu yiri calan baa la saaray foojariya waa ka calankii Puntland halka ka babanaya ishii bugtay ku bikacso ciidankiina waa ka calanka waa la rogay ki Soomaaliland buu kan Puntland baana suran oo liidkii Soomaaliya u sareeyo since believing isha ku macalina wax Soomaaliland la yiraahdo oo tan ka jiraan ma jiraan waa Puntland dalku waa Puntland ma soo gali karto tolamiito dhanka kale waxa hadalka isu daba maraya qaar ka mid ah saraakiishii hogaaminayay ciidanka iyo mid ka mid ah odayaasha magaalada Ceelbo يعني قرحداس waxa weeye gacantu baqari karto anaga warkaygu waa cad yahay waxaanu ka soo wareegnay sheegaantaas waxaanu soo wareegnay ciidanka Puntland taas waa taa warkaygu waa cad yahay indhihiina ku aragsan waxa intay u heelay wasiirku wuxuu raacay hadalkii nuux buu raacay ciidankani waa ciidan waa wareegay wuxuuna ka wareegay gacanta wasiirku waa gudamada ka wadno barangeynay oo ka soo celinay ciidanka uu dacaydaynayo waa madaqadii uu ku faani lahaa oo u dhashay ankii Puntland waa ka gadaalkayga suran waa bariyay weey xerada tanu waxa weeye xeradii ugu horeysay sanaag maxaad ibrahim cigal baa ogaa ma joogo beeshin haddaan run la sheegin wax ka xun baa la sheegaa rag wax walba leh oo majority ah oo muuqda calanka hortiisa ayaa jooga si toosana waxay ugu wareegeen Puntland taas waa taa tan labaad wasiirku dee war ma hayn ninkuna haddaan war hayn bad oo warramo bad buu galaa wax badan oo beena buu sheegay raalli anaga ahaado odaygu qulaan isbig buu ku bartirayay taas waa taa Yacquub Cashe iyo wararka telefishinka GBC